Asalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada waa mar kale muuqaal cusub muuqaalkeena maantana wuxuu ku saabsan yahay dhacdo aad u argagax badan uu geystay wiilkan lagu magacaabo Austin wuxuu ahaa wiil aad looga jecel yahay dhan weliba mana aysan jirin cid ka filanayso inuu ku kacayo ficilkan baalnimada uu ku kacay balse inteenan si toos u gudagelin muuqaalkeena maanta fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada fikirkaagana noogu reeb qaybta commentiga Austin wuxuu dhashay 21 Diseembar 1996 maadaama dhaqaalaha soo galay qoyska Austin uu aad u yaraa hooyadii iyo aabihiisba way shaqayn jireen aabihiisna wuxuu ka shaqayn jiray farmashiye hooyadiisna waxay ahayd daandiiste Austin markii uu 13 jirsaday waxaa kala tagay hooyadii iyo aabihii inkastoo Austin iyo walaashiis ka yar ee Hailey ay saameyn ku yeesheen kala taga labadoodii waalid sida ay tahayna way ka soo gudbeen marxaladaas adag isla sanadkii xigayna Austin wuxuu bilaabay waxbarashadiisii dugsiga sare Austin wuxuu ahaa arday aad waxbarashada ugu wanaagsan mar walibana imtixaanaadka wuxuu ka geli jiray kaalmaha ugu horeeya Austin waxbarashada oo kaliya kuma wanaagsaneyn ee sidoo kale wuxuu ku wanaagsanaa dhanka sportska wuxuuna qayb ka noqday kooxaha ka ciyaara iskuulka uu dhiganayay inkastoo Austin uu ahaa qof xoogan jirkiisana uu dhisan yahay ma uusan ahayn qof isla weyn taa cagsigeediina wuxuu ahaa qof aad u qalbi jilicsan aadna u farxad badan malaha taasina waa sababta uu aabihii ugu yeeri jiray Happy Boy sano kadibna Austin wuxuu dhameeyay dugsigii sare wuxuuna codsi waxbarasho u dirsaday jaamacadda Florida State University markii laga aqbalayna codsigiisii waxbarashada reerkiisii aad bay ugu farxeen balse reerkoodii ma aysan filaneyn in jaamacadani ay sabab u noqon doonto isbedelka ku imaan doona wiilkooda Austin naf-aantiisana ma uusan ogeyn in jaamacadani ay noloshiisa oo idil ku bedelmi doonto Austin wuxuu jaamacadda ka baranayay kuliyadda caafimaadka uu aad u jeclaa Austin maadaama uu degay mid ka mid ah qolalka jaamacadda waxaa u bilaabatay markii ugu horeysay in keligii uu qol seexdo Austin markii uu bilaabay jaamacadda sidii caadadiisa ahaydba wuxuu la soo baxay dadaal aad u wanaagsan maadaama markan uu Austin 20 jirsado wuxuu bilaabay inuu isweydiiyey nafsad ahaantiisa waxa ka dhiman wuxuu isweydiinayay su'aalo aad u fara badan oo ku saabsan nolosha inkastoo Austin uu ahaa qof aad u xishood badan markani wuxuu ku fikiray inuu tijaabiyo mid ka mid ah maandooriyaasha si uu u noqdo qof aan aad u xishood badnayn balse bilbadii uu bilaabay ayaa midba mid kale u dhiibtay taasi oona ugu dambeyn ku sababtay in uu noloshaba ka dhaco Austin isagoo ku sugan xaaladaasi aad ku adag ayaa waxaa soo gabagaboobay sanadkii waxaana la gaaray xilligii ardayda oo dhammi la fasaxi lahaa kadib markii ardayda oo dhammi la fasaxay Austin wuxuu yimiday guriga hooyadiisa isla maalintii koowaad oo Austin yimiday guriga hooyadii reerkiisu waxay ka dareemeen in Austin uusan lahayn dabeecadihiisii hore ee lagu yiqiinay waxayna ku arkeen dabeecado nooc kale ah sida inuu si degdeg u xanaaqo taas oo markii horeba aan hore loogaga baran iyo sida habeenkii markii ay dadka seexdaan wuxuu ku dhex socon jiray guriga isagoo ku dhex noqonaya mararka qaarna intuu qolalka jiifka u garaaca dadka ayuu wuxuu ku dhihi jiray qof waliba waxaan idinka ilaalinayaa ruuxaanta ku jirta guriga maalinba maalinta ka dambeysana xaaladiisu waxay ahayd mid aad uga sii darta waxayna hooyadiisii go'aansatay inay xal wareysato wiilkeeda waxayna ku tiri waa maxay waalidan cusub aad la soo laabatay ma waxaad bilowday inaad isticmaasho maandooriye Austin waxba kama wasii qarin hooyadii wuxuuna ku yiri haa waxaa bilaabay inaan isticmaalo maandooriye kale ayana hooyadii waxay ku tiri weli ma isticmaashaa maandooriyaasha Austinna markan wuxuu ku yiri maya hadeertan waan iska dhaafay Davis oo ka mid ah saaxiibada aadka ugu dhow ee Austin ayaa sheegay in Austin uu u yimiday maalin isagoon soo wargelin yacni uusanba soo wicin Davis ayaa sheegay in Austin uu soo wici jiray marka uu rabo inuu u yimaado una dhihi jiray saaxiib Davis dhankaaga ayaan u soo socdaa Davis markii uu albaabka furay Austin uu arkay inuu banaanka taagan yahay ayuu ku dhahay soo gal balse Austin isagoo albaabka weli taagan ayuu wuxuu ku dhahay Davis anigu sanadkii ayaan dhashay Davis oo ka yaaban Austin ayaa wuxuu ku yiri waxaad dhalatay 1996 Austin isagoo wax hadal kale sii dhiin ayuu iridaba ka noqday Davis markani aad ayuu la sii yaabay wuxuuna isiri ma wuxuu yimiday inuu kaliya inuu ku weydiiyo sanadkii uu dhashay Davis durbadiiba wuxuu ku booday taleefankiisii wuxuuna wacay Austin iyo Austin taleefanka qabsadayna Davis wuxuu ku yiri saaxiib hal mar bali imaad sidii ayuuna Austin ugu soo laabtay saaxiibkiisii Davis oo fahansanaa in xaalka saaxiibkiisa uusan ashayn ayaa wuxuu wacay walaashii si ay xeebta u aadaan laga yaabayba in uu Austin ku nafiso halkaas dhexdoodii iyagoo u sii socda dhanka xeebta ayay wadada waxay kula kulmeen qaar kale oo ka mid ah asxaabta Austin markii ay iskooxaysteenna wuxuu Austin ku yiri waxbaa guriga isaga soo iloobay guriga ayaan aadayaa waana soo
soo noqonayaa. Austin asxaabtiisiina hadalkiisii wax weynba kamaysan soo qaadin, waxayna ku dhaheen ma xumo balse qaybta ayaan kugu sugaynaa ee aan nagu soo daahin. Austin durbadiiba wuxuu tegay gurigooda, wuxuuna iska bedelay dharkiisii isagoona soo xirtay dhar culus oo aan ku habboonayn in la qaato xilligaas. Markii uu yimid asxaabtiisii mid ka mid ayaa kula kaftamay dharka uu wato isagoona wax ka sheegaya. Austin oo aad uga carooday hadalka saaxiibkiisa ayaa wuxuu ku dhahay mar kale haddii aad wax ka sheegto dharkayga waan ku dilaa. Austin walaashiis ayaa durbadiiba waxay ku dhahday isdeji, kaliya waa iska kaftamay. wax yar kadibna xaaladiisii waxay noqotay mid iska caadi ah. Austin walaashiis ayuu meelgees intuu ula baxay ku yiri aniga haaf faras ayaan ahay haafna bini'aadam. walaashiis oo la faajacsan ficilada la yaab kale uu sameynayo walaalkeed ayaa ku dhahday adiga waxaad u baahan tahay dhakhtar psychologist. Austin wuxuu ku dhahay haa waa runta, waxaan u baahanahay qof i caawiya. xoogaha markii xeebta waqtigu soo qaateen way kasoo tageen, waxayna isku soo raaceen maqaaxi kaag dhaweed guriga Austin hooyadii. waxaana maqaayadii isku soo raacay Austin iyo walaashiis iyo saaxiibkiis, ayna halkaasi balan kula lahaayeen Austin aabihiis iyo saaxiibadiisa. balse intaysan maqaayada soo gaarin ka hor Austin wuxuu sameeyey iyagoo wadada soo maraya una soo socdaan dhanka maqaayada in walaashiis uu ku dhaho hal marba waxaan tijaabinayaa inaan dhimanayo in kale, isagoona kusii socdo dhanka laamiga, isagoona raba inuu isku dhigo gabaarida sida xawliga u maraya laamiga. balse isla markiiba walaashiis ayaa intay gacanta ka qabatay kasoo jiiday dhanka laamiga, waxayna ku dhahay war adiga maxaa kaa qaldan, waxaaga waali lama dhihi karo, waali way dhaafeen. Austin durbadiiba xaaladiisii waxay kusoo noqotay sidii caadiga ahayd, waxayna saddexdoodii sii aadeen dhanka maqaaxida ay u socdeen. kii ay maqaaxida imaadeenna waxay fadhiisteen meel luuq ah, shantoodiina xoogaa markii ay fadhiyeen Austin ayaa soo kacay sida aad ka arki kartaanba muuqaalkan, isagoo iska dhigay inuu aadayo dhanka suulida ayuu irida ka baxay. daqiiqado kadibna sidii hore si lamid ayuu soo kacay, balse markana isagoo meelna ku leexan ayuu si toos irida uga baxay. maadaama Austin hooyadii ay deganayd agagaarka maqaayada, wuxuu tegay guriga hooyadiis wuxuuna iska furay albaabka hore ayuuna u heystay furaha. Austin hooyadiis ayaana maqashay shanqar kasoo baxayso dhanka jikada. markii Austin hooyadiisna imaaday dhanka jikada si ay usoo eegto qofkii imaaday gurigooda, waxayna aragtay Austin oo cabay saliidda cuntada lagu kariyo. Austin hooyadiis isla markiiba waxay ka qabatay saliiddii iyadoona ku canaanadeyso ereyo kulul. Austin waxba kumuu dhihin hooyadii, intuu iska aamusay ayuuna si toos u galay qolkiisa, wuxuuna iska soo bedelay dharkii uu watay. isagoo bixi raba ayaana hooyadiis waxay ku dhahday xageed u socotaa. Austin wuxuu si degan ugu jawaabay hooyadii, wuxuuna ku yiri waxaan u socdaa dhanka maqaayada, waxaana halkaas ugu sugayo aabe iyo Hailey. Austin hooyadiisna sidaa kumaysan fasaxin, iyada ayaa hore u soo raacday, waxayna isaga hartay markii ay keentay irida maqaayada. Austinna wuxuu si toos u soo galay maqaayada, wuxuuna fadhiistay kursigii uu markii horeba fadhiyey. balse xoogaa kadib Austin aabihiis oo iscelin la ayaa wuxuu ku dhahay Austin miyaad waalatay. Austin durbadiiba intuu ka xanaaqay hadalka aabihi ayuu wuxuu isaga soo tegay maqaayadii. sakama yar kadibna waxaa soo kacay Austin saaxiibkiis, isagoona doonaya inuu dejiyo xaalkiisa, balse maadaama uu Austin baxay hortiis muusan soo arkin, wuxuuna maqaayada kusoo noqday keligiisa. balse saaxiibada Austin aabihii ayaa dhahday bal aynu wacno booliiska, waxaa laga yaabaa inuu dhibaato geystay. badiina waxay isku wada garteen inay wacaan booliiska. markii ay booliiska waceenna waxay u sheegeen sida xaaladiisu ay tahay. Jeff oo deganaa meel aan sidaas uga sii fogeyn maqaayada ay joogeen, wuxuu isku diyaarinayay inuu seexdo, balse intuusan seexan ka hor ayuu maqlay qaylada qof dumar ah, wuxuuna soo aaday banaanka si uu u ogaado qofta qaylinayso. markii uu banaanka kusoo baxayna wuxuu arkay in qofta qaylinaysa ay tahay haweeney ay diris ahaayeen oo lagu magacaabo Michelle. Jeffna wuxuu guda galay inuu ka celiyo qofka sidaan arxandarada la u dilayo Michelle. qofkaasi dilayana Michelle wuxuu ahaa Austin. markii uu Jeff soo jiiday gacanta Austin si uu uga fujiyo Michelle, Austin ayaa dhinac intuu isaga riixay ku dhahay waxaa kuu fiican inaanadna soo dhexgelin, maxaa yeelay arrintan adiga kuma qusayso. Jeff oo hadalkaas u dhaga lahayn ayaa intuu hal mar Austin ku booday ayuu la dagaalamay. Austin oo gacanta ku watay midi ayuu madaxa qaybtiisa gadaale uga dhuftay Jeff mididii uu gacanta ku haystay. uu Jeff dareemeen in midida lagu dhaawacay. Jeff ayaana ku fikiray haddii uu Austin la sii dagaalamay inuu dhaawac weyn sii gaari doono, teese malihiisii rumoobin ayuuna goobtii isaga cararay, wuxuuna galay gurigiisii isla markaana wuxuu wacay booliiska. daqiiqado kadibna goobtii waxaa soo gaaray laba askari, waxayna arkeen Michelle oo taalo dhulka aadna u dhiig baxday, iyo Michelle saaxiibkeed oo lagu magacaabo John oo Austin qoorta kaga dhagan yahay, aadna moodo sida inuu qaniinayo. mid ka mid a ciidanka ayaa u handaday Austin, balse Austin wuxuu u muuqdaa qof aanba waxba maqlayn. gerigii ayaana la soo baxay biskoolada leysarka, wuxuuna ku dhejiyey Austin, balse Austin mar kale wuxuu u muuqdaa qof aanba waxba dareemayn. gerigii ayaana Austin hortiisa soo istaagay si uu laad ama darbo uga fujiyo, balse askarigii wuxuu
wuxuu arkay in Austin uu cunayo wejiga John. Askarigii ayaana darbe iyo laad ku bilaabay Austin si uu uga joojiyo cunida uu cunayo wejiga John, balse Austin waxaasoo dhan uma muuqdaan, kaliya waxa u muuqda inuu cuno wejiga John. Askarigii ayaana markan wuxuu Austin kusoo fasaxay mid ka mid ah eeyaha ay adeegsadaan booliska. Eygii ayaana ku booday gacanta Austin, balse Austin hal mar ayuu iska filqay, dhinac ayuuna isaga tuuray eygii. Eygani oo loo soo tababarayba markii hore inuusan baquusan ayaa mar kale wuxuu ku booday Austin, wuxuuna ka goostay qayb ka mid ah murqaha gacanta. Qaniinyada eygii iyo laadka iyo darbadii uu ku waday askarigii ayaa Austin waxay ka dhigtay inuu daciifo, ugu dambeynna wuu suuxay. Dhammaantoodna waxaa loola wada cararay dhanka isbitaalka si loola tacaalo xaaladooda caafimaad, balse markii isbitaalka la geeyey waxaa la sheegay in John iyo Michelle ay dhinteen. Austinna wuxuu galay kooma, wuxuuna ku jiray muddo 11 maalmood ah. Kadib markii uu Austin koomada ka soo baxay, dhakhaatiirta baaritaanka ku wadeen Austin ayaa waxay sheegeen in Austin jirkiisa aan laga helin wax daraagis ah marka laga reebo walax dareere ah uu ka cabay garaash ay lahaayeen Michelle iyo John. Waxayna maxkamadda shaacisay in marka hore xaaladiisa caafimaad lasoo hubiyo, kadibna waxaa dhici doona xukunkii loogu talagalay, waxaana loo badinayaa in lagu xukumi doono dil toogasho ama xabsi daa'in. Ugu dambeynna waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalkeena maanta. Fadlan haddii uu ku anfacay, like saar, lana wadaaga asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.